maraakiibta carbeed ee ku hoyda ama ka shiraacda xeebaha Soomaaliya. Ninka afraadna waa Ibnu Hawqal oo qiyaastii 977 miilaadiga noolaa, magaciisa oo buuxa waa Abu Al-Qasim Ibnu Hawqal. waxa uu qoray kitaabka uu ku magacaabay Suurat al-Ard, sawirka dhulka. ninkani waxa uu socdaal ku tagay Afrika, Andalus iyo Bariga Dhexe. waxa uu si gaar ah u booqday magaalada Saylac iyo magaalooyin ku yaala xeebta badda Cas iyo badweynta Hindiya. waxa uu isagu sii faafiyay qoraalladii Al-Istakhri, waxa uuna si gaar ah u tilmaamay dhaqaalaha iyo ganacsiga. ninka shanaadna waa Al-Biruni oo noolaa 973 ilaa 1048. magaciisa oo buuxa waa Abu Rayhan Al-Biruni. waxa uu ahaa saynisyahan weyn, aqoonyahan xidigiska ku caanbaxay iyo taariikhyahan muslim ah. waxa uu qoray kitaabka uu ku magacaabay Tahdiid al-Nihaayat al-Amaakin iyo kitaab la yiraahdo Al-Hindi. waxa uu bixiyay xog ku saabsan badaha, waqtiga iyo masaafada ay isku jiraan magaalooyinka Soomaaliyeed. ninka aan ku darayo ee lixaad waxa weeye Ibn Battuta.